السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاني هرفرديدا مر labaad anigoo caafimaad qabo walaashin deeqo youtube channelkaad naga daawaneysaan waa youtube channelkiini tubta toosan maasha allah asxaabta waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh eed ugu xidhan tihiin channelkeena waan iga mahad celinaynaa caawa waxaan rabaa inaan halkan aan kala hadlo afnaan horey Soomaali u mahmaado maxay dhahday doqontu usha lagu dili lahaa qacmahayga ayay ku sidataa marka afnaan caawa waxaan ku yiri qofka ay tahay iyo waxay ahayd ayay cadaysay waxaan leeyahay afnaanay marka aad leedahay anigu ninka waan ku afxumaa waan ku kululaa hadiya jeer waan la diriri jiray waan qaylo badnaa marmarka qaarkood wuxuu igu sheegay inaan ahay qumayo xumaantii aad gasho dhan waxaan ku yiri adigoo micna wiilkaas amba wiilkaas xumaantiisa noo macnaynaya ayaad midaadina caawa aad soo dhexgelisay waayo allah subxaanahu wa tacaala ayaa xaqii caawa kaa dhawaajiyay ayaan oran karnaa afnaanay horta anigoo halkan waxaan rabaa caawa inaan masaashir aan kuusoo mariyo amba aan kaaga sheego waxaad ogaataa horta in hore loo yiri nimanku maxaa la dhahaa gaajo way u adkaystaan miyay ahayd laakiinse ciil uma adkaystaan ninka aad leedahay wuu iga tegay wuu iga cararay waxaan isdhahay amba maanta anigu han kaa dhex akhristay markaad videogaaga soo dhigtay inuu yahay ninkani nin adigu aad u diiday inuu guriga fadhiisto oo waxaan ku yiri meel kasta aad ka weerartay marka aad leedahay ninkayga marka uu soo noqdo waxaan eegi jiray dharkiisa mise waxa marsanba makeup gabdheed kadib markaan makeup weejaan waxaan ku dhaho ayaad dhahday wixii igu qancin jiray waxaan inay makeup ahayn ay tahay wasakh amba wax oo uskag ah oo meel ka soo maray waan qoslay markaan taas maqlay marka uu ku lahaa waa uskag oo yeelaysay ninka waxaan ku yiri darbiyada miyuu seexanayay mise ilmo caruur oo wuxuu ahaa dhulkiis jiidjiidaya war Soomaaliya waxaan naga daayo waxaan yiri haddaad wax sheegaysaan wax u eego runaa la sheega yaa tan caawa waxaan ku yiri afnaanay way ka fashilantay waxaan ku yiri intii hore waan ku dhageysanay hadalladii hore waxaan ku yiri hadallo sax u muuqday oo daacadnimo ay ku jirtay ahayd afnaanay filinkii musalsalkii wuu dhamaaday hadda kadib waxaan ku leeyahay intaa bas nagaga dhe waxaan dambeed wadid waxaan ku yiri saa haddaad kusii wado xumaantaadii oo dhan ayaad soo bandhigaysaa ma garatay marka afnaan iyo gabdho kaloo badanba waxaan leeyahay nimanku ciilka iyo in yacni la ciilo ma ogolo afnaanay anigu caawa sida ii muuqata amba wejiga saxda musalsalkaagii aan u arkay halkaa waxaa iga soo muuqatay qofka bilaadanka qalad uu gala adiguba qalado badan inaad gashaa dhici karta oo allah subxaanahu wa tacaala hu ku asturay laakiinse halka qalad oo wiilka uu kaa galay oo ahayd inuu gabadh kale yacni ula sheekaysto amba uu gabadh kale uu noloshiisa hay ku dhex jirto midaas aan waxa leeyahayba mid weyn ma ahin Soomaalidu laakiinse waan ayaantan dhan waan u fiirsanayay qof kasti afnaan umba la raacsan yahay laakiinse afnaan waxaan ku leeyahay anigu hadda ka hor videoyadaada aad iyo aad ayaan ugu taxnaa sheekaduna waxay ahayd sheeko igu socotay oo u muuqatay inay sax ahayd laakiinse waxaan ku yiri caawa warkii hore war soo dhaaf afnaan waxaan ku yiri caawa way fashilantay waxaan ku yiri bas intaas waa inaad bas nagaga dhaxdaa waxaan ku yiri afnaan story waxaan ku yiri caawa ayay final amba caawa ayaa ugu dambaysa ayaan anu oran doonaa insha Allah barnaamijyadaadii kale qurqurux badnaa ee adiga gabadhaada routiinkeena iyo waxaan ku yiri noloshiinii kale noo soo bandhiga midda kale aan rabo inaan ku sheego afnaan waxay tahay wiilkan haddaad rabto inaad ka go'do waayo ani halkaa waxa iiga muuqata inaad still aad weli wiilka jeceshahay maadaama qof maanta dhan markaan hadal hayo maanta dhan kusoo celcelinayo dad minis qofkaasi qalbigayga kama go'ayo anu waxaan ku leeyahay please haddaad rabto ninkaas iyo noloshiisa inaad ka dhex baxdo istorigiisa iyo wuxuu xumaan kuu geystay alxamdulillah dheh allah subxaanahu wa tacaala ayaa iga soo badbaadiyaa dhahday ninkaas waxaa tiri mas ayuu ahaa marka macnihiisa iyo qofka u yaheed noo doondoonayso faraha ka qaad baan ku leeyahay allah ayaa abuurtay ninkaas hadda maanta waa nin aroosa gabadh ayaa maanta yacni ninkeygii yahay gabadh ayaa adduunkan ka jeclaatay gabadh ayaa ninkaas maanta ku qanacsan ayaan dhihi karnaa marka afnaanay xumaanta oo yacni dhayliga ah oo dhayli ka dhigtay amanay filinkaas hadda kadib storygaagaas
halkaa nagaga jooji nolol kale oo kuu diyaari hadday jirto iyo sheeko kale oo cusubna noo soo bandhig waxaan ku leeyahay please waanadaas waxaan rabaa inaad dhegaysato micnaheegana aad si fiican u fahamto soomaaliyay sacabada la tumaayana ha layska joojiyo waxaa la yidhi laba qof hadday yacni wax isku haystaan amba ay wax ka dhexeeyaan oy labada qofba ay kuu soo cabtaan mid haddii had aragto yacni calooshiisa ay dibadda taallo ha isdhihin midka kale ayaa qaladka lahaa innaga maanta wiilkaas maan dhagaysan laakiinse haddana dhammaanteenba waan xakunno kommentiyada waad aragtaano waxaan nidhi afnaan ninkii ka tegay ayaa xumaa ayaan dhahnay laakiinse caawa afnaan waxay noo caddaysay inay iyaduna ay hayd xadhig lama sitaana waxaan uga jeedaa iyadu may sheegin inay nin kale ay yacni la socotay noomay caddeyn laakiinse waxay dhahday inay ninkan ay cagta u saartay miyaa la dhihi jiray inay ninkan hay u diiday inay maskaxdiisu nasato afnaani adigana inayar nimaa ku qaaday shaydaan baa ku waswaasiyey haddaad waxaas dhanba aad faraha ka qaadi lahayd ninku ilaahay baa afuru banee naagtuu doonu bannaanka kula hadli karaa naagtuu doonuu shukaansan karaa ninku ninkaaga goormuu yahay markuu albaabkaaga kasoo galo albaabkaaga markuu kasoo galo qayladaad iska dayn lahayd meekaabkan waa maxay barfuunkan kuu marsani waa maxay kan kuu marsani waa maxay yaad la hadashay farahaad ka qaadi lahayd ma garatay afnaani taasi way ku dhaaftaan ku leeyahay please and please garhkaan ku haystaa jilbahaan ku haystaa waxaan ku leeyahay ninkaas ka dhammow haddii aad jeceshahayna dee ninkaas maanta waad aragtaa naag buu guursadee shalay waa adigii nagu lahaa adiga oo ninkaas naagtiisa oo afnaan ahaan uu ninkaasi qabo inay gabadhii kale ay ka hari weyday afnaani maanta waxaan ku leeyahay wiilkaas gabadh ayuu qabaa aroos buu ku jiraa waa wiil guursaday waa wiil gabadhi jeclaatay oo nimanka ka dooratay wiilka waxaan ku dhihi lahaa afnaaney ka dhammow afnaaney haddaad wiilka jeceshahayna noo soo sheeg annaga ayaa arji u qori doona annaga ayaa soo raadin doona waxaan leenahay stiil gabadhii kuu dhashay gabadhaada curad stiil way ku rabtaa baan leenahay dee ninkana allah labuu u banaaneeyey markaas afnaaney ninka annagaa kuu soo celinayna waaniyo waxaan galaynaa waxaan ku leeyahay please and please ninkaas haddaanad jacayl u haynin oonad rabin hadalkiisa iska dhig waayo maxaa la dhahaa kab iyo xaarkeedba waa laysku tuuraa ninkaa waad kala tegteen waad kala dhammaateen gabadhaa quruxda badanlaa niga dhaxaysa markaa waxaan ku yiri abaayo gabadhaa yar eed dhashay u tudh istorigaygaan ka sheekaynayaa iyo noloshii aan soo maraan ka sheekaynayaa iyo in familkayga igu ogolaaday iyo noloshaada aad nooga sheekaynayso haddaad rabto gabdhaha walaalaha inaad wax u faa'iideyso yacni weji kale u yeel oo waxaad dhahdaa gabadhay haddaad ninka ku aragto yacni waxyaabahaayoo kale adiguna saas ugu jawaab adiguna taa same yacni dhan kale naga tus sheekada laakiinse maanta dhan inaad nagu celceliso ninkaygu sidaa buu ahaa dabeecadiisu sidan kale ahayd kan kale ahayd annagu ninkaagii maanta mana guursanayno ninkaagii gabadh buu ilaahay u qoray gabadh baa heshay oo uu noqday ninkeygii afnaaney waxaan ku leeyahay please and please waanadan hadduu qof kale kuu soo sheegayna alxamdulilah haddaan anigu maanta ugu horeeyana waxaan ku leeyahay waanada inaad qaadato adigana way kuu wanaagsan tahay waayo allah subxaana watacaala ceebaha dadka in la sheego ma jecla afnaaney wax badan baan ku dhagaysanay keep going aan ku nidhi sacabada aan kuu tunnay ninka aan kaaga helinay laakiinse caawa laga bilaabo waxaan leenahay sheekadaasi way dhammaatay afnaaney way dhammaatay sheekadaas afnaaney naga jooji intii naga gadmayso way naga gadamtay laakiin intaa dambe waa xumaan aan dhagaysanayno iyo namiimnimo waayo ninkaas anagu iyo afnaan iyo ninkeyga markay guri ku wada noolaayeen annagu waxaan iga dhexdhacaya maan arkaynin adiguna wixii dhacay waad noo sheegtay hadday waxaasi wax jiraan yahayna allah subxaana watacaala ayaa ninkaa xisaabin doona haddayna jirina dee afnaaney waxaan ku yiri miisaankaagii waxaan ku yiri dee wanaagaagii ninkaasoo dhan baa la tegaaye afnaaney waxaan ku yiri 2 rakacadood tuko ninkaa iyo noloshiisa ka dhammow abaayo waxaan ku yiri bakeer biyaa kacab intii halkaa kuu fadhiday ee xumaan ahayd eed rabta inaad nala wadaagto istorigani ma dhammaanin sheekadaydu may dhammaanin waayahayga iyo waxa aan laabtayda ku haya een rabo inaan nala wadaagana stiil waan hayaa haddaa leedahay afnaaney waxaan ku leeyahay waayahaaga laabta ku hayso intii aanad hayn kareyne halkan taagan ee ku ciijinaysana waxaan ku yiri musqusha intood gasho ood keligaa isku fiiriso miraayadda mise muraayadda miyaan dhahaa
keliga intaad isku fiiriso muraayada waxaad dhahdaa hebel waa saas waa saas waa saas waa saas kadibna waxaan ku laba bakeeriyo biyo ka cab ninka iyo sheekadiisa sidaa ku dhaaftaan ku leeyahay afnaani aniga waa kaas hadalkayga ugu dambeeyay ninkan anaga waxaad na tusaysaa inaad jeceshahay waayo qofka hadaa laga go'ay oo aragiisii la rabin oo dee aad warqadiiba aad kala qaadateen oo diiniyan aad tahay nin oo diiniyan aad tahay gabadh maanta ninka ay kala tageen waxaan ku leeyahay waxaad u raadiso xumaantiisii waa qalad anigaa kule maanta hadday Soomaalida intii kale ay ku dadabooshay anaa kule afnaanay waa qalad noloshaada aad soo martay iyo ninkii aad wada qaadateen ninkaas ka dhamow faraha ka qaad Allah subhanahu wa ta'ala yaa isaga xisaabinaya intuu Allah xisaabin la hortii adigaaba meeshan ku xisaabiyo oo la soo fadhiistay wixii dambi uu ka galay inta aad maanta ka gashay maalintii waxa ku daawanaysa 200 oo kun oo qof oo ninka aad xumaan u gelisay xumaanta ay dadkaasi inta leega ku daawanaya ee qowlkaagii amba hadalkii aad ka tiri qaatay ee ninka waxaan ku yiri xumaan caloosha gashtay oo amba ninkaas niyada ka habaaraya xumaanta inta leeg ee maanta bulshada u gelisay ninka aad kala tagteen hadday runtahayna dee Allah ha cafiyaan leenahay wiilkaas haddaad dee wax aad ku dardartayna waxaan ku leeyahay noloshan quruxda badan leh oo maanta Ilaahay ku siiyay ee sabirkii aad ku heshay iyo wanaagii iyo ducadii aad Ilaahay ducaysatay maantana Allahii aad ducada weydiisatay yaa ku dhahay afnaanay ibn aadankayga anaa abuuray anaana xisaabinaya wiilka faraha ka qaad hadday waxa aad noo sheegaysay sax tahay oo wanaagii iyo ducadii aad alla ka ducaysanaysay haddaad maanta nolosha quruxda badan la aad ku heshay wanaagii uu Allah ku siiyay oo ninka oo kaga hadh ku yiri afnaanay wiilka kaga dhamow aad baan u mahadsan tahay please waxaan rabaa qof kasta oo videogaygan daawada inaad gaarsiisaan gabadha walaashaya aad baad u mahadsan tihiin intaan video xiga aan ku kulmi doona hawada waxaan leeyahay inigoo nabada iyo anigoo nabada halagu saliyo xabiibkeena Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh